aan idinka qaado oo dee qisadani waa qiso ka dhacday wadanka qaarada Yurub ka dhacday waxa weeye aan idhaahday aniga baqayo daaqadaha iska soo adadkeenay ilaahayna ammaanso dad qalato gabadh dad qalata ah dadka la yiraahdo juudaanka ay qaban weeyaan ayaa ugu timi walaashan inoogu casuman wadanka ay joogto gurigeedii sariirteedii la seexatay ayada ayaa inoo balbalaarin doonta subxaanallah anigu ka hor dhici maayo ayada ayaa inoo balbalaarin doonta khadka ayay inoogu jirtaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalo وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawow hoodoy bal qisada cajaayibka noo balbalaari bal bilow ilaa dhammaad marti baanu kaaga nahay aad iyo aad dad mahadsantahay cashaluun waana dhawahay waana diin balbalaarin doonaa si fiican may maqashaa aad iyo aad si fiican ha qisadani waa qiso dhacday kor haddaad inoogu yar qaado codkana way kasii fiicnaan lahayd ha hadda may maqashaa ha waa qiso xaqiiqa oo dhacday oo dhaba haye insha allah biidni illaahi baari aan walaalahayga soomaaliyada qurba joogtaana la jeclaystay inaan runtii la wadaago haye waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa walaashay cashaluul oo nacaawa channelkeeda marti ku ahay iyo tv-geeda marti ku ahay soo dhawow walaalo aad baan aniguna sidoo kale kaaga mahad celinaya kuguna mahadnaqayaa soo dhawow haddaan bilaabo qisadaasi orda qiso aad iyo aad cashaluuley haddaan in yaro hordhaca sameeyo qiso aad iyo aad cajiibigahayd oon aada ugu qaslay ayay qisadan dhinac iska yara shabahaan qisana qiso qosolo bay ahayd oo dhinacna naxdin ka ahayd qisana qisadan weeyaan aan idiisoo wado horta qisada kale waxay ahayd qiso aan aada ugu qoslay arriga maraykanka ayay ka dhacday hadda ka hor baa v o eda laga soo daayey ninkii gaariga taraaglaa watay ee dabadeetana gaarigiisii intuu dhigtay meeshii baasiinka labadii gaari ay soo ka intay istaba dhigeen naagta cadaanka ay gaarigii inankii Soomaaliga soo raacday waan dhageystay anigu wad maqashaan malayne yaani waxay ku noqotay kararaha inuu shil galo oo kale yaani marka aan qisadaydan xasuustaba qisadaas ay igu soo dhacday inankaas waayahay horta qisadan aad iyo qisaad xanuun badan bay ahayd dadka qaarkood kale u arkayaan laakiin qisa aniga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu runtii iga badbaadiyay bay ahayd waxa dhacday maalin maalmaha ka mida ay dhalinyaro isoo wacday wadankayga anigoo jooga waayahay markii la isoo wacay waxaa laygu yidhi kan baanu ku jirnaa gaaladii baanu ku tiri waan idin celinaynaa wadamadii aad ka soo gashay baan idinku celinaynaa waayahay dabadeetana markii la yidhi dhalinyaradii waa laydin celinayaabaan ayaa inan qura ayaan gelinaya markaa waayahay inanku sow inan buu la soo hadlay inan buu la ballamay markaa anigu gabadh keligeed nool baan ahay markaa waayahay dabadeetana inankii uu la soo hadlay inankii markuu la soo hadlay de Yurub waxaan malaynayaa malaa martigelintiiba dadkii ku yaraatay dee waddankeeni ma joognin waa run inankii uu ka dhacay haye dadkii marka le wuu ka dhacay yacni wuu gooyi dadka qaarkood si bay u fahmeen wuu gooyi waayahay dabadeetana markii meeshii uu kula ballamay istaashiyoonkii tareenka uu kula ballamay ay yimaadeen ayay waayeen waayahay dhalinyartaa inanba la socota waayahay inanta anigu ma garanayo inan qura ayaan garanaya dadka kale ma garanayo waayahay dadku waa 4 qof waayahay dabadeetana anigoo suuq ka adeeganayo oo suuq iska maray iskuul ka soo baxay baa la soo wacay waayahay runtii anigu waqtigaas wax saasa kuma dhaamine waxaan ahaa qoftee iyada laftigeedu iskuul iska dhigato oo de gurigeedana ku rawaxlo oo de guri la siiyo meel de maasha allah doo fadhido laakiin de dadkan aan inankan garanayo waqtigaa isku meel baan ku wada jirnay isku xiraan ku jirnay waayahay dabadeetana inankii aanu xerada ku wada jirnay de taalka micin buu soo bilow xiisu war inanteed bariga xerada ku wada jirtay halkaa deganay ayaa malaa de maanta idin qaabili karaysa bal inantii la hadlo waayahay walayda tadlo wuxuu yidhi 4 qof baanu nahay
laba qof oo kalena waa nala socdaan mid meel kale uu socdaa inna meel kale uu socdaa adu 6 qof baa tiradii la ii sheegay markaa waaya guriga ku jira waa 3 qol iyo fadhi waaya soo baxaba ku haye markaan ku soo baxa runtii adeegii baan meel ka soo qaadanayo wad garanaysa qof sin galo iska soo yeelaa adeeganaya de wixii yar boqob qaab ku soo adeeganaya lacag ba markaa aan sitay lacagtaas computer inaan kusoo gatan doonayay lacagtii computer kusoo gadanayay baan u soo siiyay adeegii iyaga waxaan marsida kusoo meesha ila ceeba taale qofka binaadka kii martida soo haye wixii lacagteedii kala baro baan ugu soo adeegay waayahay markan adeegii ugu soo sameeyay adu qolaba meel baan kula balamo qaybo marbay timiyo gurigii baan soo nimid waxaan soo wadnaa waayahay markaan gurigii soo nimin waxa dhacday inaanu habeennimadii kulligii isu soo wada hoyanay waayahay markaan isu soo wada hoyanay aanu gurigii nimi anu markaa iskuul baan dhigtaa waaya subax walba anu waa baxaa waaya iskuul baan aadaa dabadeetana waxa dhacday dadka subaxii markaa iskuulka aadayo waxaana laga dhaadhiciyaa haddii aad gurigan aqayla ka baxdo dad ka buuqaan waa lagu xidhayaayo iskuulkana waa laga herayaa caydheerna waa lagaa xidhayaa dadkana waa yacni sharcigana waa lagaa qaaday si wanaagsan markaa dadka waxaan ku uri edaab yeesho isluub yeesho qof hadlaha yeelanin waaya waxaa ku jira nin aad u cudweyn oo ilaahay subxaana watacaala sameecad saaray halka ma ka salaamaya inankaasi waxa kooladu meelaha iga maqlaye abdul salaamaya inankaas shaamiya waaya dhalinyaradii adigu gurigii waa la wada joogay gurigii markii la wada joogay maalin maalmaha ka mida ayaa habeennimadii gabadhan ila seexata haye markaa inamadii qolalkii kalaad siisay inantiina aday kula seexataa gurigu waaba kala sarreeyaba shaqaba iskuma lehe qolna waa xagga hoose oo anaa seexdo oo qolkii hurdada markale anaa deganaa laba qolna waa xagga saro labada qol inamadii baa iska dego watan jaraaba la korayaa shaqaba iskuma lehin waayahay maca tv bay xagga sare ku leeyihiin oo adduunya xagga sare ku leeyihiin oo adduunyaduba isuma dhawaa waayahay aniga inantu markaa dee maadaama ay nimadii xagga sare joogaan dee aniga inantu waa wada seexna waayahay inantu runtii waxa weyn dadka aadka u khuuriya haye anuna iskuul baan dhigtaa 7 casho horta hurdada anigu dhaxa waayahay indhahayga waxa way kada xinjirta waxa kori dhiigga marka xoolaha la qalo xinjirtada ka wada sax dabadeetana waxa kori waa iska dulqato xasnada inta lagaa tegayo iska samir ila dadkan waa adeegooda soo qaado wax walba soo qaado waxa ku dadka meesha ku haysaa dadkana waa dad Soomaaliyeed ha dib waxba haysnibin bal wata dadka meesha ku hay waay waxaan hayo oo meeshii ku hayaba habeenada ka mid ah haye ayana iska saxan waayahay inamadana iska saxda haye kurbalash inamada kurbay joogan annaguna hoos bay joognaa waaye kawadhi waxaan ay runtii dadka aad ka hurdada fududnayo hurdadeedii kacninkay kacday waa dareenta waan dareen waaye in kawadhan kacday waaye dareemintii aan dareemay albaabka furtay waa ogtahay oo dee aqalada yurubna ma xidhmaan oo dee fura ma laha exactly ha oo meel la xidho ma waa la iska celiyaa dabadeetana inanta way baxday inanta bixitaa ka baxday waa inan dhalinyaro ah oo xoogay leh waayahay bixitaanka inantu baxday ee xaggii musqusha ay aaday ha ayaa markaa aqalkayga hurdada baadkiisa ha iyo musqusha xaggeeda muraayaday ku leeyihiin moogta waayahay marka suuliga haddii la shido qolkayga hurdada waan ka arkay inuu musqusha la shiday waayahay markay wixii wada shiday ee xagga ka shiday baa anu qolkayga waa madow
fadhigina waa madow waa iska jiifay moogta haye laakiin hurdadii maadaama oo aan ka kacay oo aan dareemayna gabadhi kacdo horadee hurdada uguma noqonaysid waa run dabeetana markay gabadhi soo baxday laykuu soo damas kii suuliga waayahay oo marka fadhigu mushna kii suuliga soo damas allahu akbar haye waxaan maqlay wax ciyaya oo sida dee bahalka usoo ciyaad garaysa allahuma salli calaa oo maxamed cidii bahal kale haye waxaan isiri oo talow maxaa dhacay meesha ka ciyaya haye dabeetana cidii horta cabaar bay meeshii ku wareegto cidii markaan xoogay maqlayin oo aan istaagay oo aan albaabka hoostiisa taaganahay ayaa cidii danta oo alla aamusa waaya subxaan allah markaas aanu cida waxaan u maleeyey qofku intuu bahalka noqonayay iyo cidiyey hayaay haye laakiin waxooy kadib markii fadhigii madooba oo qofkii soo galay wixii oo bahala oo bahal oo aan gabadhi ahayn bahala oo qof wax bahalo saa u taagana allahuma salli calaa maxamed haye qofkii weli madooba halkan aan taagana albaabka hoostiisa haye dabadeetana albaabkaygan furo haye eeg baan isiri haye waan arki waay waxba layrkayga waan shida haye layrkii markaasa kii fadhigana shida haye bahalkii baan halkaa ku kulana horta oo gabadhii ahayn oo bahalkiya oo aan dhar xidhnayn mise dhar xidhan dhar ma jiro haye wixii eeg xaggan hoose baa ka waxaad moodaa inuu dhar xidhan yahay oo kale oo dharkii gabadha xaggan hoose uu ka xidhan yahay luguhu waxay laaleegin intaasay laaleegin subxaan allah xayu ladii haye cidiyaha ka baxay baa ku dhudhuka gacantaada marka saa u qabatin na mitirka oo ka aka dhudhuka na oo kale ay leeyihiin cidiyaha ka baxay iyo cagta ka baxay haye dabeetana bartaasaan isku qabsan qolkaaga hortiisii qolka hortiisa qolkii waa ka baxa fadhigii baana sula tag fadhigii baana ku jirnaa markaa waaya qolku fadhigu ku yaala hayaay haye horta naftu markaas isku kati haye waxaa siri de kole baa dhimatay haye dee boorta faraa taagtaag haye dee fara taagtaagna maada caag iska soconaya haye dabeetana gacan baan saa ugu qabto gacantaan saa ugu qabtay waa iska riixay haye markaa gacantayda dhowr meelood ayuu wixii saa u qabta sida maaragtay waxaan fara waaweyn oo balbalaanin oo kale saa ka qabanayo oo kale oo arana cidiyo kuloo cidiyo ku gelayaan buu saa ii qabtay qof allahu akbar haye markuu saa ii qabtay afka iyo wejiga iyo waxaan wax dee la qiyaasi kariya muu ahayn allahu akbar haye intaa waan qaylinaya marka haye waar hebelo waar kume inamada waan qaylin haye dabadeetana gacadkii kalena waa isku dhigi haye labadii gacmood baanu saa isugu haysanaa waaya afku intaasu dharilegi haye marka afkii waxaan ka ilaashay inuu indhaha iga soo haye oo afkii ima sogaya labadii gacmoodna saa labadii halkaa dhudhumo oo kala qabsaday moogta haye waa iska riixayaa wixii haye ilaahay subxaana watacaala ilaahay markuu ku badbaadinayo isaa ku badbaadinaye ila waxaan weydajin lahaye waaya dabadeetana waan qayliyo inamadii baa soo daategay haye bahalkaa iyo inanta isku rabo waaya allahuma salli calaa maxamed ayaa naloo yimi waaya mid baa marka halkaa intuu qabtay bahalku maradii waa gisan yahay marka inanku markuu idiin yimi muxuu isagu dareemay suu dareemay inankii suu noqda markuu arkay dee qaylinaya horta ma qaylinayaa ha labadeeda qof waxaan isku sii haraadan ma arka isagu xagga dib u kaga yimi haye
ilaa inanku marka dambe u arki doonaa deetana xaggaa dambe intuu qabtay ayuu sidaa u tuura waayahay tuuradii uu sidaa u qabtuu tuuray oo ku dhegay haa ku soco malayaanta bahalkii baabuu soo galay haa maya way kana malaalay waxaan si bahalkiina ma soo galay dabadeeta may waa laygu soo garaaco muudka ku jira geliy walaale no problem walaalo haye dabadeetana waxaa ku uri inankiitu saa u jiiday ayuu markuu saa u jiiday buu wuxuu arkay gacmahan iyo lugahan iyo wuxuu anigina kasoo duldhacay haye gabadha saa isaga caabilaysay baan ahay waarayga qaabtaydahayse waayahay dabadeetana wixii isla dhacna waayahay wixii markaan isla dhacnay albaabkii la furiyo laysiri dee qofkan waxaan dee bubahale dee hala heliyo waayahay dabadeetana wixii markii saa loo qabtay wixii markii halkaa dibadda loo saaray inamadii kalena way idinku soo tooseen haa haye waxaa ku uri dibaddii loo saaray oo ummadiiba soo toostay oo wixii dibaddii loo tuuray oo aanu albaabkii xidhanay oo naqasku saanu hiraagay iminkadaasaan hiraagaya xataa waxaan anagaba hiraagayni xasbuna allah caleyh wanacma alwakiil haye ayuu walaalo dibadda albaabka waa kukule layd yar maara haa laydkee dasan markii dibadda loo tuuray cabar markii wixii halkaa googlanaa waanu anigu halka fadhi ayinatii caadi nagu soo garaacday banaankii kasoo baxday inatii caadi nagu soo garaacday laa xawla walaa quwata illa billahi alcaliy alcadiim haye inatii albaabkii markay nagu soo garaacday oo ummad inamadu life bay u arkeen way arkayeen waa caadi oo aniga dhiig baaba iga daayabay haye oo nabarada meelaha qaar way igaga yaalaa haye cududaha halkaa mar ay istiri halkaa garabka agtiisa ku dhigo halkaa kalxanta agteeda ay igu dhigtay oo istiri mala halkaa fujiso haye yaa allah oo ilaahay badbaadiyey horta afka leelima soo gaarin afka haddii le horta haddii ay gacanta maaragtay gacmaha soo isugu dhigna inamada iyo waxan iga soo gaarin wuxuba iska wax yar bay ahayd adee laysu soo gaadhi lahaa waxan maad noolaatay keligii horta keligii haddaan ahaan lahaa dee dhulkaaba la jiidi lahaa haye dabadeetana waxaa dhacday markaan walaala cabaar joognay oo dadkiiba wada naxsan yahay wuxuu muxuu ahaa maxaayna soo weeraray yaa ina laayay maxay ahayd daan la hayo haye ayaa walaal albaabkii dharagna laga soo siiyey haye inantii caadi nagu soo garaacay haye oo marya xidhan mise qaawan maryaheeda xidhan caadiya oon shay ka maqnay haye macal khimaarkeedii yara xidhan haye albaabkiiba inamada alla wixii baa nagu soo garaxayo waraynagu furino booliis baa sala nagu wacda horta haye dadkana waxay qofkaas haddaynu martaba aynu ku soo booliis bay waxaan waaye anigu booliisku u diyaaraba inamadii yar bay joogaan jarmalka iyo faransiiskay wada joogaan haye haye dadkana waxay albaabka اللهم صل على محمد هي ولا العادي ويان لهذا والله ومشقه ويان سبحان الله حي الذي صومالي ودمق لسان وحواينا تسئل على لسان الله أكبر وأنا تسئل على لسان والله قفنا يا لسود وسني أحبا بحراي هاي اللهم صل على سيدنا محمد ومعجزة الربانية dabadeetana inamadiiba waxay yidhaahdeen inamadiiba waxay yidhaahdeen maadaama uu ahaa de waxaan ila laayay uu ahaa waxaynu arkayni albaabka furi mayno haye ninkii tago ow walkii sheekadii kukaasa nin u arkaayo haye waa qaana daah yarina daba kunti anaa ku warba wareegay isagoo daahigi baan eegay ilaa guriga anaa digin haye waaba inanti haye dabadeetana
oo soo noqdo inamadii baa la hadlo waxa ku waryaali marka inamadii way ogaadeen in inantu baxday anaa u sheegay inantu way baxday way iga tagtay markaasa sheekadu timo dhegeysanayeen intu suura gelisay haye qofta taariibahoo baxayo oo bilaa sharciya ay la joogaana waad garan kartaa waad yarab cabsi baa kugu jirta adiga laftigaaga haye dabadeetana markaasay walaala cashaluule waxay yidhahdeen kugu daalayne inamada yidhahdeen kama furay haye oo booliiskana wacan haye waa ku walaa booliis ha wicine intaad ka furtaasoo ilaahay ma badbaadin intaasoo ninna suguma joogtaan fartaa fadhiista aroorta waaga marka banaan kulligan wada baxa soo raaca haye exactly daaba booliisna uma dirayn haye qof la garanayo juudaan haysatana way ahayd caadiyo bahal noqota bismillaahi raxmaani raxiim ilaaha weyn haye wadamada yurub ka midana way joogtaan walaalay noo sheeg barinay ayaga joogtaan islaalinay meesha joogto waa bareefad cidna looma sheegayo may gooni waxa dhaweey sheegi doonta daweeya dadka oo kale waxaan u malayn in la daweeyo wax daba laguma sheegno inta aanu ba wareystaa haye maasha allah horta sheekadaasi halkaasay ku dhacday sheekadii igu naxdinta badnayd dadqalato haddii la maqlo sheekadaas aniga aan arko igu dhacday allahuma salli calaa maxamed wallahi waa yaab yaa mankaag adduunka dee horta wax waliba adduunka way ka dhacaan walaal aad baad u mahadsan tahay hooday aad baan kaaga mahad celinayaa qisada wanaagsan ee dee dhinac walba buuxinaysa aad nala maaragtay aad nala qaybsatay horena waan usoo sheegay in la feejignaado waxay inooga turjumaysaa qisadani oo casharka aynu ka qaadanayna uu yahay in aynu dadka aynu soo xereysanayno ama aynu martigelinayno ama ehel ha ahaadaan ama asxaab ha ahaadaan ama umaturnabi ha ahaatee aynu iska ogaano iska hubsano haddii aadan qofka ilaa xadkaa garanaynin ama aad guriga keligaa ku nooshahay ha isugu yeedhin ha u yeedhan ha martigelin waayo markaad keligaa ku nooshahay imaan jirin nantan ilaahayba iyo waa badbaadiyey iyo inamadaas laakiin haddaad imika keligeed ahaan lahayd way jajabsan lahayd marka meel kastaba joog ama dalkii joog ama dabadda jooga qof aadan garanaynin oodan iska hubin ha martigelinin adduunku sidii hore maaha wax walba waa la arkayaa dadkeenni markay qurbe usoo baxeen ee lasoo tahriibay ee bada lasoo jiiday ee maaragtay dee wax walba lasoo cunay dee qofkii kolleyba wuu isbedelayaa sidiisii ahaan maayo marka walaalahayo waxaan idin leeyahay feejignaano qofka aynu u yeedhanayno cidna ha martigelinina qofka xitaa udheel lacag siiya oo hudheel kireeya hudheelada yareer iska jaban ee maaragtay $20 habeenkii lagu seexdo wallahi qofka idin soo mutaa maxay ahayday ha isugu yeedhin guryahe at least jeebkiina ka martigeliya idin leeyahay qisooyin badan baa inoo soo socda ay walaalo nagala qayb qaadan doonto insha allahu tacaala waan u mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad qofkii sidaas oo kale qiso haya ama dad qalata ha ahaato ama tahriibtii ha ahaato ama adduunku waaye badan yahay qisooyinkiisa iyo waayihiisa badan lasoo kulmay hayana welcome baan leeyahay waad maxay ahayday waad isoo wici kartaa telefoonkayga kulliba shaashadan kusoo qoraya insha allahu tacaala halkaas ayaan maxay ahayday idinka sugayaa ila soo xidhiidha dee waxaan ku ihi soomaaliya imika qisada inantaas inoo sheegtay waxbaynu ka faa'iideyna qisooyinkaad kaleda haysaana waxbaa laga faa'iidaya aynu maaragtay kala faa'iideysano oo maaragtay feejigaad aynoo noqoto aad baan idin salaamayaa hayolan waana nabadgeliyeen runtii aad iyo aad waxaan dadka uga wacyigeliyaa anigu oon ku idhaahda waxa soo dhaweynina dadka aydaan aqoonin sax dee kuwaad garanaysay baaba haddii la doono saa noqon karee maxaa la yeelaya maya kuwaad garanaysa xataa kuwa yaqaaniin oo ka dhaxa aamin waxaad ku tahay walaala ma aqaanin adiga waan ku aqaana waan ku soo dhaweynaya laakiin qofkaan aanan aqoonin ee kula socda walaala ma soo dhaweynayo sida aniga igu dhacday oo kale exactly waa sax waa maqlaysaan walaalaha markaas yani walaalahana waxaan ka codsanaynaa markasta xataa waxaa jirta aniga markaa keligay baan ahaa laakiin waxaa jirta inaad caruur haysatid dad baa jira la gubo dad baa dhibaato loo geysto dad baa jira habeennimadii wax lagu sameeyo gurigaba lagu qafilo dad baa jira hantidaba laga xado yani qisooyin fara badan baa inoo soo socda qisooyinka inoo soo socda siday walaaluluul inoo sheegtay waynu ka daba tegi doonaa laakiin taxadar hala taxadiro
absolutely. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. aad baad u mahadsan tahay walaal. hala taxadiro baan idin leeyahay. waa maqlaysaan inantii ay ku dhacday ee nafteedu ku dhacday yani ku tirid ku teen maaha qofba qof ku siiri iyo qof ku siiri maaha waa qofkii ayadu ku dhacday ee dad qalatada